barasabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay ay ku weeliyeen maayirka degmada Garadagh Mudane Faarax Aadan Ciise iyo gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Garadagh Cabdi Mire ayaa soo kormeeray dugsiga dhexe ee degmada Garadagh iyo sare halkaas ay ka socdaan imtixaanadii shahaadiga kormeerkooda kadib ayaa iyagoo si wada jir ah warbaahinta ula hadlay ayaa ugu horeyntii halka waxa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Garadagh isagoo arinta ka hadlayna hadalkiisa waxa kamid ah sida أنا كل هذا يفك وحبرشة دقمة قردق أنا قدومي وحبرشة دقمة عبد الرحمن بن أحمد وحنوساك بلوني امتحان كي شهادي جها كاسور دمان قبل هذا كسماء لان ردن ستوس أما سيحب سمية وصعنا يا أنا جنا سيحب سمية أيو ساك نوجو بلامي أو واحد بعتاي كذين هل كان أرتدى sidoo kale isaguna halka waxa ka hadlay maayirka degmada Garadagh hadaladiisina waxa kamid ah sida la soo sheegay waxa ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee form 4ka iyo eedka ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay gobolada dalka oo dhan ka bilowday waan hambalyeynaa marka hore wasaaradda waan uga mahad celinaynaa sida shaqada wanaagsan iyo doorka muhiimka ah ay kaga jirto horumarinta qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa iyagana ardayda فورها يوريك وفرسنا يتحانك وحنا أورتينا يقول إنه يتحانك سوق دم إن شاء الله. قدام بينتين براسب قبل كسنة والدعاء يتردارم بودري أرض أوفرسنا سيتحانك الشهادة جمهورية الصوماليلاند كارهان قبل كسنة أيها هذا اللي وحكم. وحأقول أهم بكبل عظمي التحانك السنوي أها شهادة أها وكبل عظمي تضوّد تشون ومانت لبض كل شيء طرق. sidoo kale gobolka Sanaag si fiican oo habsan oo socda ayuu imtixaankaasi guud ahaan gobolka Sanaag uga socdaa maanta waan degmada Garadagh ku kormeer hawleed aan ku joogo iyadana uu ka bilaabmay oo goobjoog baan ka ahayn si fiican oo aad iyo aad wanaagsan oo deganaan iyo kalsooni leh ayuu uga bilaabmay ilaa iyo haddana ومدرسة TV قرنك جمهورية الصوماليلاند